السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحابتا ميل كستو aad joogtaanba kusoo dhawaada janalka Maajid Faaruq. Maanta waxaan rabaa inaan soo gudbiyo casharka ku saabsan tensiga. Introduction of tenses waa hordhaca tensiga. Inta qofka uu bilaabin tensiga waxaa loo baahan yahay hordhaca tensiga inuu barto ama muqaddimada tensiga. Waa muhiim markaad English baranaysid inaad barato tensiska. Tabanayo labada tenses waa inaad barataa haddii aad luqadda English mar aad baranaysid. Waxaan bilaabi doonaa hadduu la idmo tensiska. Introduction waxaa lagu wadaa hordhac of tenses oo ku saabsan tensiska. What is tense? Tense macnihiisu waa maxay? Tense is the form of the verb which indicates the time of the action or event. Tensesku is the form waa qaab of the verb oo ficil ah which kaas oo indicates oo tilmaamayo the time waqti oo tilmaamayo of action ama dhicitaan markaas ay dhacayso waqtigaas ay tilmaamayso or event ama dhacda ay tilmaamayso. Marka how many tenses are there in English? Englishku imise tense ayuu leeyahay? There wuxuu leeyahay 12 tenses 12 tenses in Englishka according ayada loo ogayo to the classification markay la kala saarayo sida loo kala saaro. But laakiin they are exactly from the 3 tenses sa xaqiiqta ah 3 tense waye. They are waxay kala yihiin past, present, future. Waxaa lagaga baahan yahay inaad baratid 3 tenses. 3dan haddaad baratid Englishku waxaa laga yaabaa in sidaad si fiican aad ugu hadli kartid. Waxaan ku bilaabi doonaa qaybta labaad. What is the verb? Ficil waa maxay? Ficil waa maxay? Verb is the most important waa shayga ugu muhiimsan in the language luqadda. In fact, xaqiiqda you cannot make ma samayn kartid one sentence ama one sentences hal jumlad ma samayn kartid without a verb ficil la'aan. Qaybta saddexaad. What is subject? Subject waa maxay? Ficil sameey waa maxay? Subject is the doer of an action. Waa ficil sameeyaha kan dadka wax ku sameeya waa subject. What's object? Lagu sameeyaha waa maxay? Object kan lagu sameeyo is the one that is affected by the action. Hal shay waaye oo saameynayo ficilka ama shay waaye oo saameynayo waxyaabaha la sameynayo. Tusaalooyin ayaan ku bixin doonaa hadduu ay la idmo. Examples tusaalooyin. Hassan killed the lion. Hassan waa subject. Killed waa verb. The lion oo waxa Hassan ayaa qofka dilay ficilka la sameeyay dilig waaye meesha lagu sameeyay waa lion liwaxi waaye. Sidaan usoo haday usoo qadnay. Ali reading the book. Ali wuxuu akhrinayaa buugtiisa. Ali subject waaye. Maxaa la akhrinayaa buugii. Buug shay lagu sameeyay waaye. Reading meesha ay ku jirta akhrisku waa ficilkii. Amina cleaning the house. Amina waa subject, cleaning waa ficil, house na guriga waa subject, object waa lagu sameeyaha. I will learn English. I will learn English. Ayda waa subject, learning waa verb ama ficilka, English na waa shayga la sameynayo ama lagu sameynayo objectiga. Halkan ayaan kusoo gabagabayn doonaa hadduu la idmo. Fadlan la soo tensiga casharkiisa koowaad. Kani waa hordhaca tensiska introductionka. Waa muhiim inaad baratid tensiga hordhaciisa. Fadlan haddii aad ku cusub tahayna janalka subscribe garayso, gambalkana furo sidaad ugu mid noqoto kuwa ku guuleystay waxbarashada dhanka online-ka ah. Nabadgelyo. Waxaan idin rajaynayaa naxariis iyo nabadgelyo xagga Alle ka ahaatee dushiina ahaato. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.